هدو موسى تادي دي هاي سرادين تا يوحقرتك يبع مش وحن شيء ده موسى كما فينا عبد الرحمن تور ونحلقه في دلين horta tala waa kaasoo institutioniskeena saasan noqdeen halkii lagu baxsanayay waninka dagaalka horanaya wahaliiriye maanta waxaan halkan isu taaganay waxa weeye inaanu taasi u dirno askartii RRUda reer Soomaaliland jumhuriyadda Soomaaliland ay ku geereysay shalayta isku hurmaadka iyaga iyo jabhadii gacan libax waxaan leenahay إلهي جنة كورابي كور داوع منا لبض قول بنا حلينا إلهي إنه دق سيء عفمات دق وإنه كحنا هاي هذه الموضوع حنا هاي وصلت بكسوريك مع أنتي أغسطس كوبي تمكيدي بلا واتنكي كوبي تمكن كوبي تطبق قفنا أي جيريودين وحركة مقطع إلا maalinta ilaa maanta ina waxna waxay soo guriyay ahaayeen oo qalad laga daba geenayo waa maanta oo dalkeena lagu soo duulay oo dhiigeen la xalaashaday oo maabloo samaystay oo la doonayay in shacbiga reer Soomaaliland la mideeyo sharciga laascaanood reer laascaanoodna loo furo wada hadal ayaa maanta guddaro waxay ka dhacday in gudahii inay ka dhacday waxa markoo sheegaya ciidamada difaaca qaranka ee jooga aaga laascaanood iyo goosha cadda inay ku milmin oo ni saameyn ku yeelan murankan uu Muuse wado iyo tala xumaantan uu Muuse wada ee siyaasadeed إذا قارن كان دفاع إنسان وحاسي لقى أتاجنا إذا كان لديك السحرة إذا كان يسوي مال لديك تكون نهضة يكون نوشة وحوي وش أنا وش يا الشعب غير يسوي مالا أنا أقول أفرت سنة ونقيلين ورككع ورموسى تلاها كسونا وردلك هلا بدبادي تيود دميسه أربعة دويت الله ورمان وح عقله يتكشف وحنا كقيلين إني أتوقع ما تجرى ما أنت يعني لبح نقول كريم ما يسو سلاس عناص كريم عشان نقفك معها يضوء أوكتي ما أنت عن شعب اللي دلين أو سجال بنتين عسكري أيها أركز وحي كده عيا إهرقابه يبرعه يهرقيسه هذا هل كان مشاكل تماده سيدو مكدونيو إنه كاين ويسوي هليلة لمشاده هي سومالنا يقل على سهولة هذا ديار المشاكل الشعبي دعضوه وحين نقول من طهرنته لا سعاد من إلوبي وحالينا هاي أنت عشان نقول أنت laascaanood mudaharaadkii u horeeyay wuxuu ka dhacay 9 qof baa dhintay 9 ka maanta 9 koodi baa dhintay shalay tan waxaan leenahay ciidamada reer Soomaaliland oo Muuse halka geeyay iyo in kaahin halka soo qaadeen waxaan leenahay jabhadaas yani libaxna dalka burburin meeyne haday halkiina jooga waxaan doonaynaa xal inaynu gaadhno siyaasadeed waxa weeye ilaa anagu maalintii aanu murankaasi bilownay mar kasta nabadan ku dhawaaqin war nabadda mar kastaba ficil waxay sameynayeen Muuse nabadda ka soo horjeeda kow wuxuu sameeyay doora kordhis aan loo baahnayn oo sharci ahayn ayuu ku dhaqaaqay haddana wuxuu ku dhaqaaqay inuu go'aan commission oo gaar u ah isaga u soo saarto haddana wuxuu ku dhaqaaqay inuu soo saaro dikarto xalaalaynayo wuxuu wada xaaran dad kale haddaba nabadda waxaan sheegaynaa nabadda waa loo baahan yahay cudurka calaamadiisa lama daweeye waxa la daweeyaa cudurka la daweeyaa
cudurku waxa weeye waa siyaasad iyo shaqada uu wado magaranaysaa sharci daraanta ee muuse wado. muuse wuxuu yidhi gar qaadani maayo tiyo qoriga dhabarka laga hayo. haddaba adna muusow doorasho aan la isla ogoleen oon sharci ahayn oon adduunka ka dhicin qasab qori kuma hirgelinsid. haddaba waxaan leenahay labada qori baa la joojiyo, labada qori baa la joojiyo oo weli chance baa jira, opportunity jira. waxaan leenahay labada qori baa la joojiyo, laba xal hala gaadho. muuse hadduu doonayo dalkaasi inuu nabcad rabo oo inuu wax ku harsanayo la xijeclo gobasha ha dhigo, sidii la yeeli jiray hala isku yimaado, doorasho la isla ogol yahay oo taymkeedan la isla ogol yahay hala galo, halaga wada hadlo. hadduu muuse taa diidan yahay salaadiinta iyo waxgaradka iyo bacmisho waxaan sheegeen dee muuse kama fiicna cabdiraxmaan tuur oon hal qof dilin. waa tii shir qaran la qabtee shir qaran noo qabta oo dalka iyo qof kala qaado. waxaan leeyahay aday ku soo gabeynaya guurtidii aynu ku baxsan jirnay xaaji cabdi sheekh ibraahim furre, ninka maanta jooga waa ninka lahaa laascaanood maxay ka galay, waa ninka sharcigii la sameeyey soo tuuray, waa ninka maanta leh beel iyo waxay saysan intii kale ee goobaamiya dagaal ee maskaxdiisu reer qabiil Soomaaliya ka mid ah ku gaboobay cudurkeeda. dagaal ka dhici maayo Soomaaliland insha Allah taala. waxaan leeyahay horta tala waa kaasoo institutioniskeena saasay noqdeenoo halkii lagu baxsanayay waa ninka dagaalka horanaya u hadiiriye. waxaan leenahay shacbiga reer Soomaaliland muuse hadduu xilkiisii saarnaa ee ahaa dabacsi iyo nugulaan uu dadka u nugul yahay iyo ismaqal iyo wixii ku soo qaalmaanay sharci iyo isdagaal u diiday. dee dad baynu nahay 5 milyan baynu nahay, 5 milyan qof baynu aan tale ka weyn oo ka tashan karnaa. waa ambiilkayga ugu dambeeyay reer Soomaaliland, waa ambiilkii u dambeeyay haddaan u cudnahay. waar nabaday aan ku naaqaalay taajkii ina saarnaa adduunku inagu mashiiranayay uu bir dhaxas xasan sheekhaliyay walaal anagu dhan bay isku faana Soomaalidu dhan baa u tihiin qurux u tihiin ismaqal maamul kala dambeyn dowladda samaysteen. war wixii aynu sameynay oo ina kaahin iyo saleebaan iyo muuse aanu midna gacan ku lahayn inteena kala samaysay ilaa maalintii uu inaga furfuray Ilaahay u naxariisay nin kale yiraaho cigaal aynu dhabnay ayaa maanta isaga gacantiisa loo soo geliyay kuwii aan ka hor joognay. haddaba waxa weeye danta guud maanta dadkeenu way gaajoonayaan, dadkeenu maanta way gaajoonayaan. islaam waxa ii soo qortay hadii akhriya waxa ii soo islaam curyaamada ayaa waxay ii soo dirtay text bay ii soo dirtay, text message ayay ii soo dirtay idagoo iga raali ah. text message-kii ayaan doonayaa inaan halkan dadka la wadaago. text message-kaas hadda dhegeysta. islaamta caqligeeda waa curyaamad. waxay habar yar dalkeenu maanta ayuu ugu xun yahay. ilaahay colaada iyo dagaalka ha inaga joojiyo. masaakiinta aniga iyo inta ila midka ah ayuu muuse ku tumanaya. dalka iyo duunyada dan kama leh. ilaahay baynu tala saaraynaa inuu ninkan inaga badbaadiyo. balaayadu dooniyo isaga ilaahay ha ku koobo. ilaahay isaga ha ku koobay. waa islaam curyaamada ilaahay baan isku daray. wataa horta message-ka ay shacbigeenu guri kasta intaasoo cilaaj baa jira, intaasoo qof oo bukaan jirta oo maanta meel loo cararay jirin. marka waxaan leenahay halaga kaco fadhi ma jiro. ilaahay intaa inagu ekeysay subxaanahu wa tacaala. maantana iyaga maanta ku bilaabay wuxuu ina kaahayri ciidamadayada gacantaanu ka sii dayn. xagee tegi imse farantoodba ka dagaalami doonta. marka waxa meesha aqli ma jire. waxaan leenahay reer Soomaaliland
kaca gamca isqabsada waxaan shacbiga u sheegaynaa haddaan nahay xusbiga ucud daryeelka iyo cadaaladda inaanu ka soo horjeedno maamul xumo sharci daro awood daro marjanimo incompetence ragamoodiya qabiil muuse qabiil u galaa markuu arrimuhu xumaadaan qabiil maaha dadkan waa family ilahay waxaan ka barya ilahay intaa inagu ekasay subxaana wa tacaala ilahay inuu nabadda aynu ku caanimaalay ilahay subxaana inagu waaran karabaya ilahay ummaddeena ummad isjecel